soddonka sano soo socdo hooyooyinka hadda carruurtooda yaryariin carruurtoo koriska ku jiro sidee caafimaadkooda noqon doona? assalaamu calaykum. maalin kasta waxaan ka fikiraa soddonka sano soo socdo hooyooyinka hadda carruurtooda yaryariin oo koriska ku jiro sidee caafimaadkooda noqon doona? maxaa ku dhici doono? ma hooyooyin badan oo waalwaalan maanoo soo bixi doono? ma hooyooyin badan oo isbitaallada ku jiraan maanoo soo bixi doono? in badan hooyooyin badan ayaa la shaqeeya. hooyooyinka siday u cabanayaan ee dhibaatada haysato waa wax laga naxo. waxaa ka yaabanaha war hooyo waa tii loo naxariisi jira. waa hooyo midii carruurteeda markay garabkeeda la ekaadaan u soo weynaadaan, yacni 13, 15, 14 soo gaaraan, waa tii lagu cayuumi jira carruurta. waa taa la dhihi jira marna waa lagu caaya carruurtaada, marna waa lagu cayuuma. hadda laakiin sheekada way isbedeshay. maxaa qaldan? hooyooyinka naxariis carruurta kuma haystaan. hooyooyinka carruurada inta badan aan la hadlo, aabbayaal wanaagsan way jiraan, laakiin inta badan ay la soo xiriirto dhanka carruurta way ka cabanayaan, dhanka aabbayaashina way ka cabanayaan. culays intee la eg ee hooyo qaadi kartaa? ma carruurtii teenagerka may ka fikirtaa? ma kuwii yaryarka may ka fikirtaa? ma aabbahood oo daryeel xumo ku haayo may ka fikirtaa? intey hooyooyinka yaryarka isku kala goynayaan? howshan haddaana hadda wax laga qaban oo hooyooyinka la caawinin, 30 soo socdo ama 20 sano soo socdo ma aqaano Soomaali waxay noqon doonto. carruurteennana waxay noqon doonto ma garanaan. waayo meesha hooyo intaasoo stress haysto, intaasoo dhibaato haysataan koriso carruur ay korisay, carruur fiican ma ka soo bixi karaan. kuwa ilaahay badbaadiye waa gooni, laakiin maxaa arki karnaa waxyaabaha dhici karo oo u badanta mustaqbal xumo iyo mugdi. waayo maxaa dhacay marka ilmaha stress ku koriso, ilmina stress ku dhacay. ka soo qaad hooyada hadda teenagerka haysato oo teenagerada haystaan oo ila soo xiriiro, waxay ku leeyihiin qaarkood oo gabadhayda way iga xanaaqday, oo wiilkayga wuu iga xanaaqay, oo wiilkayga markuu iga xanaaq ama gabadhayda iga xanaaqdo wax ma cunayaan, waa ka walwalsanahay. haye sooma ahayn teenager markaa soo noqoto carruure in hooyadiin madaxa saaratiin? sooma ahayn hooyadiin inaa garabkeeda noqotiin? sooma ahayn hooyadiin haddaa aragtiin iyadoo weel xaleysa ama sariir firaashis inaa dhahda maya, feerahan iyo gacmahan iyo xooggan waxaa noola siiya annaga inaan wax kuu qabano, kuu shaqeyno, ku caawino. sooma ahayn aabbayaaloo idinkani maamadan hooyadan yarta dhalayso marna waa walace, mar way dhalaysaa, soo inaa u naxariisateen ma ahayn? haddaana wax laga qabanin ma aqaan wax dhici doona. bal ila soo sheergare, ma walwalkaas keligay ma i haysto? ani keligay ma i haystaa? mase waad ila aragteen hooyooyin badan ayaa maryaha iska qabo oo caadi isku mala caadi ahayn? inta badan inta ani la kulmay aab bila xisaab iyo ka caadi isku mala laakiin caadi ma aha.